الله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد. aad baan idin salaamayaa saaxiibada channelka ku xiran cilmi barid channel. Videogan video cusub waxaan kaga hadlaynaa waa luqadda Englishka. Waxaan kaga hadlaynaa waxa loo yaqaan simple present tense. In English waxaa jiro basically 12 tense 12 saddex ayaa waxay yihiin very important basically waana gundhig ay yihiin saddexdan ayaga. Waxaa ka mid ah simple present tense oo ka hadlayso waxa loo yaqaan dhacdo maalin walba dhacdo. Simple past oo dhacdo la soo dhaafay. Simple future oo dhacdo dhacayso mustaqbalka. Marka saddexdan tense ama saddexdan dhacdo ayaa waxay gundhig u yihiin 12 tense. Marka caawa waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaan simple present tense oo dhacdo everyday action ah oo maalin walba dhacdo. Tusaalahan subaxii kale waxaan ka toosaa 4 o'clock in early morning. Aroortii hore waxaan ka toosaa 4 waan quraacdaa. Wax normally ah oo maalin walba aad samayso regularly ah ayaan kaga hadlaynaa marka uu ka hadlayaa tense-kan isaga. Let's go around socono. Simple present tense is in English is used to describe an action that is regularly true or normal. Simple present tense in English waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo an action dhacdo that is regularly true or normally, taasoo dhacdo maalin walba ama iska caadi ah oo adiga maalin walba aad samayso. Tusaalahan subaxii kale 8 ama 7 oo 8 o'clock ayaan qabsadaa baska, then waxaan aadaa jaamacadda, waxaan aadaa maxaan ku yiraahdaa iskuulka, waxaan aadaa shaqada, such like that regularly normally. Marka in English 12 there are 12 tenses. 3 tenses basically very important such that simple present tense, simple future tense and simple past tense are very basically to these 12 tenses. Let's go ahead. Marka aan ku soconaynaa structure ahaan in Englishka marka tenseska structure ahaan wuxuu samaysan yahay waa saddex qayb. Falsameeyaha jumladda qabanayo ficilka waxaa loo yaqaanaa waa faacil ama subject. Falsameeyaha ficilka ama actionka la sameynayay iyo qaybta jumladda oo the rest of the sentence oo loo yaqaano object. Marka in general ninka third person loola jeedo he, she, it waxaa lagu daraa s. Look here marka speaks he or she it waa singular waa keli s ayaa lagu daraa inta lagu sheegay third person ayaa lahaa. Sida he speaks English at home guriga markuu joogo wuxuu ku hadlaa luqadda Englishka. He learns or she learns, it learns, she or he. It waxaa loo isticmaalaa inta badan animalska ayaa loo isticmaalaa non-living things ayaa nooleen. So markii we can't use this uma isticmaali karno. We cannot use for English at home يعني kuma hadli karso لأن this is not non-living thing waaye, so we can't use. He or she speaks English at home guriga markay joogtid waxay ku hadashaa luqadda Ingiriiska. Marka subject waxaa I, we iyo we, they, he, she, it. This marka waxaa la isku dhahaa 7 pronoun. Todobada magac yeel ayaa lahaa 7 pronoun ayaa lahaa. Verbkii waa actionkii la sameynayay. Halkan waxaa waaye the rest of the sentence jumladda inteeda kale. Marka wax la isbeelinayo for the verb in the third personka wuxuu ku duwan yahay markuu kala duwan yahay differ uu kala duwan yahay depend on iyadoo ku xiran marka the end of the verb ficilkaas isaga waxa uu ku dhamaanayo. Haddii ficilka uu ku dhamaanayo o waxaa ku daraysaa waxa loo yaqaan es. Haddii ficilka uu ku dhamaanayo z waxaa ku daraysaa es. Marka for the verbs ficilada end ku dhamaanayo in o, ch, sh, h or z we add es in the third person. Waxaan ku dareynaa qofka third personka oo loo yaqaano he, she, it waxaan ku dareynaa s in third person. Go, goes. Go is a verb. The last maxaan ku yiraahdaa wax ugu dambeeya ku dhamaanayo waxaa waaye o, so we add for es. Catch, catches. Wash, wash, wash is waxaa ku dhamaanaya endigiisa waa ch, so we add for es. Kiss oo double s ama s waxaan ku dareynaa es. So number 2 verbska ku dhamaanayo waxaa loo yaqaan consonant shibanayaasha iyo plus y ay raacsan tahay. Shibani iyo laba iyo y ay raacsan tahay
waxaan sameynaynaa marka hore inaad ka bixiso remove waxaan ka saaraynaa y waxaan ku daraynaa waxa loo yaqaan ies Mary Marius Mary waxa u dambeyso y this waa shibane waa artan waaye consonant waaye shibane so markii waxaa gadaal ka raacsan plus y-dan consonantiga waa arta plus y-dan so markii we say art move ka saar so Marius studies cries worries noid marka xusuusno verbiska ku dhamaanayo shibane shaqalka ku dhamaanayo y-da you just add kaliya waxaan ku daranayaa waxa y ka saarayso ma jirto play oo kale enjoy oo kale see oo kale marka halkan waxaan kusoo baratay ficilada ku dhamaanayo waxa loo yaqaan shibane iyo y ay raacsan tahay marka hore y-da ka saaraysaa waxaa ku daraysaa ies sida Mary study cries so waxaan ka saarnay y-da so iyo saas ay ku noqotay marka haddii ficilka ku dhamaanayo waxa loo yaqaano in ending ku dhamaanayo in a vowel plus y yani haddii ku dhamaanayo shaqal iyo y isla socoto waxaa ka saaraysa malahan s ayaa ku daraysa keliya tusaale fiiri marka this example play okay ugu leeyahay waa tan waa vowelkii waa shaqalka y-dana waa taasaa ma saaraysid keliya s ayaa ku daraysa enjoy let's go walaan socona marka marka waxaa in present simple tense affirmative markaa joogto hadalka iska caadiga waxaan si dhahaynaa marka she works marka hore waxaan kusoo sheegnay third personka inaad ku darayso waxa loo yaqaano s to the verb ficilka ayaa ku daraysaa s ayaa ku daraysaa she works on her basket after the dinner every day marka iyadu waxay yani sameysaa basketka dambiisheeda kadib maalin walba ay sameysaa so marka this sense wuxuu ka hadlaya waxa loo yaqaano everyday action so markii iyadu waxay ka shaqeysaa ama ay dashaa dambiisheeda maalin walba kadib cashada macnaa qadada dhexe so this affirmative waa jumladan hadal iska caadi ah affirmative ayaa la dhahaa markii tense-kan saa ujeedno third person shiga ah third person waxaan soo sheegay inay tahay she it verb waxaa ku daraysaa s so this waa tana maalin walba ayay sameysaa ay haweeneydani gabadhani everyday action waayo marka lambar 3 marka tan waa kasoo hadalnay go on marka the present simple tense marka affirmative soo u shaqeeya I iyo we kuma daraysid waxa loo yaqaano s waa kuma daraysid I sidoo kale he iyo it waa third person ayadana waxaan ku idhahdaa kuma daraysid she it idana verb waxaa ku daraysaa s we you idayna ayagana kuma daraysid keliya waxaa ku daraysaa third personka horaan kaga soo hadalnay lista go on horaan kaga socono marka the present simple marka interrogative marka aad joogto su-aal inaad ka dhigta ayaa rabtaa waxaa isticmaalaysaa marka in this sentence marka wuxuu leeyahay auxiliary verb aan ficil caawiye oo ah dash iyo do dash waxaa isticmaalaysaa waxa loo yaqaan wax singularka ah sida maxaan ku idhahdaa he she it iyo wixii singular ah magacyada caadiga ah sida ali oo kale john like that waxaa isticmaalaysaa dash here marka fiiri does he work as a doctor does he waa taasaasi aan idinku sheegay waxaa isticmaalaysaa he she does ayaa isticmaalaysaa tenniskan wuxuu leeyahay auxiliary verb oo ah ficil caawiye do iyo does he work as a doctor isaga wuxuu u shaqeeyaa dhakhtar yes he does dhakhtar ahaan ayuu u shaqeeyaa so let's go ahead marka interrogative marka jiro soo u shaqeeyaa marka do waxaa la isticmaalaa si hadda idinkaga soo sheegay I iyo we work dasna waxaa u isticmaalaysaa third person ah he she it work do we you we marka we you iyo they ayaa iyagana loo isticmaalaa keliya das waxaa qaadanayso he she it dasna waxaa do waxaa qaadanaya I iyo we iyo I you iyo they iyo you interrogative markii doesn't work as a doctor isaga uma shaqeeyo dhakhtar ahaan so does he ayaan siin third person iyadana waan kasoo hadalnay
let's go horaan socono negative marka soo shaqeeya I iyo we waxaa isticmaalaysaa do not marka inaad soo gaabisaa u baahan tahay waxaa samaynaysaa don't I don't work I do not work I do not work he she it idina doesn't ay qaadanaysaa saan hore ugu soo hadalnay she doesn't not work she doesn't work idina waxaa siinaysaa do not work halkaas ayuuna darsigii inoo egyahay intaan darsiga kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa nabadiino waana kaga mahadcelinayaa inaad videogan daawato please subscribe noo saar channelka ayaan kaga mahadcelinayaa mahadsan